Soomaaliya waxay dooranaysaa baarlamaankii 11aad. Waa markii labaad oo ay jiraan laba aqal. Baarlamaankii 10aad wuxuu ahaa mid ka mid ah baarlamaanadii ugu liitay ee soo mara taariikhda Soomaalida. Waxqabad xumadiisii wuxuu ku soo gabagabeeyay inuu dalka dagaal geliyo oo muddo kororsi sharci darro ku dhaqaaqo. kuraasta xildhibaannimada Soomaaliya waxay waqti dheer lahayd aragtiyo kooban oo ay ku raadin jireen xubnaha kuraastaasi raba. Lacagta, qabiilka, in hantida lagu ilaalsado iyo dhismaha madaxweyne ayaa sal u ahaa in muddo ah. Laakiin doorashadii la soo dhaafay iyo midda soo socotaba waxaa jira mowduuc ku siyaaday ujeedooyinka loo baacsado kursiga xildhibaanka. Qodobkani waa ka baxsashada cadaaladda. Eedaysanayaal raadinaya xasaanad ay ku dhuntaan. 4 sano ee Farmaajo iyo 4 sano ee Xasan Sheekh labadaba waxaa jiray dad loo haysto eedo kala duwan sida xatooyo xoolo dadweyne, dilal qorshaysan, weeraro siyaasadeed iyo ku tagrifal awoodeed. dadkaas si ay dalka u sii joogaan oo ay cadaaladana uga baxsadaan waxaa u furmay hal dariiq waana xasaanadda baarlamaanka labadiisa aqal. tani waxay aastay cadaaladii la waafajin lahaa eedaysanayaasha waaweyn. Soomaaliya waxaa maalin walba la xukumaa eedaysanayaal hoose xilli jilayaasha dambiyada waaweyn ay ku gambanayaan awoodaha sare ee dowladnimada. sanadkan 2021 wuxuu u muuqdaa sanadka ugu badan oo ay baarlamaanka u tafaxaydanayaan xubno loo haysto dhacdooyin xuquuqda aadanaha liddi ku ah iyo dhaawac ay u geysteen haykalka dowladnimada Soomaaliya. eedaysanayaashan oo badankood loo haysto inay magaca dowladnimada ku geysteen gaboodfallo waaweyn waxaa la filayaa in sharciga la hor keeno haddii uu isbeddel ku dhaco hoggaanka dalka. iyaga waxaa u sawiran inaan la maxkamadayn doonin lana beegsan doonin haddii ay xildhibaannimo soo qaataan. damacan waa mid ka mid ah sababaha sanadkan qaali ka dhigi doona kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. xasaanadda uu bixinaya dastuurka Soomaaliya ee la siiyay xildhibaanada waxay u muuqataa mid liddi ku ah xaqa, sinaanta sharciga iyo isla xisaabtanka dowladnimada. 4 sano ee Farmaajo joogay xafiiska ugu sarreeya dalka Soomaaliya loogama dhaqmin wax dastuurka ku qoran. xasaanadda xildhibaanada waxay ku qoran tahay dastuurka dalka. qof diiday in dastuurkii lagu dhaqmo ee dambiye geystay ma ku baxsan doonaa isla dastuurkii uu diiday inuu ku dhaqmo markii uu talada dalka wax ku lahaa? waa su'aasha hor imaan doonta eedaysanayaasha doonaya inay soo qaataan xildhibaannimo si ay u helaan xasaanad ay kaga badbaadaan eedaha loo haysto. musharaxiinta xilka madaxweynaha qaarkood waxaa la aaminsan yahay in haddii ay doorashada ku guulaystaan sanadkan inay maxkamadayn doonaan xubno badan oo si bahalnimo ah uga faa'iidaystay awooddii lagu aaminay ee ka dhexaysa ummadda Soomaaliyeed. aragtida ah in baarlamaanku noqdo meel ay dambiilayaashu ku dhuntaan waxay u muuqataa inay sanadkan soo dhammaan karto haddii uu dalka qabsado qof aan u joojin doonin qodobkaasi lagu bannaysanayo boobka hantida ummadda iyo ku tagrifalka awoodda dowladnimada. dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan in aanay qaadan karin in golihii sharci dejintu noqdo meel ay dambiilayaashu ku baxsadaan, taas oo haddii ay sii socoto sahli doonta inay dhacaan jariimooyin kale oo waaweyn oo loo geysto dadka, dalka iyo dowladnimada. maxay kula tahay?